السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا سلامي أصحاب تالكم كحران دمانتين بإسو نقض وعنبان اللي إن ما تدعدين أما قصدين وحي قصة حبسان تاي قصة الله يابلي هذا باين تانا دعدين وقودا قلين هذا تشالنك كوعسوب تسبسكريب بسارسا هدي هورانو لجوتنا موقال قليد بسارسا إن هذا بطا وشاهبون كسو دوادا saaxiibayaal soo dhawaada mar kale qisadeena waxay ka dhacday wadanka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira caasimadda Qaahira weeye waxayna ku dhacday wiil 24 jira wiilkan wuxuu ahaa wiil da'yara oo shaqaysan jiray wuxuuna ka shaqayn jiray magaalada Qaahira halkaas ayuu ka xamaalan jiray maalmaha kamid ah culays badan oo soo food saaray shaqadii awgeed ayaa waxa fikrad baa ku soo dhacday inuu guursado oo shaqadan guur ku nasto guur ku dago guur xasilloon ku dareemo guur uu ku doorsanaado inuu guursado isagoo ku tala jira guurka ayaa waxa isbarteen gabadh shaqaale ah oo ka shaqayn jirtay magaalada Qaahira gabadhan waxay ahayd jaariyad baheed waxay masaxi jirtay xafiisyada magaalada Qaahira gabadhaas ayay isbarteen markay toddobaad wada hadlayeen wada xiriirayeen ayaa guur buu soo bandhigay iyaduna waxba kumay gacan seedin ee way ka yeeshay markaas ay isku guursadeen markuu guurkoodu dhacay ayaa waxa dhacday toddobaad gudihii ayaa aqal galeen halkaasayna ku wada noolaayeen muddo markii la soo wareeray ayaa maalmaha kamid ah ayaa wiilkiiba arrin la yaab leh ku arkay dabeecada aanu isaga cajibinin wuxuuna isku sheekeeyay inuu yahay ninka adduunka ugu ayaanka daran leh ee ugu murugada badan leh wuxuu ku leeyahay han kasto aan lahaa wuu burburay himiladaydi way burburtay wuxuu yiri marnaba ma aan suuraysan in aan guursan doono gabadh astaamahan leh hadaba gabadhu maxay tahay gabadhu waa gabadhan uu guursaday waxa weeye gabadh uu yoolkeedu kaliya uu yahay dood iyo aflagaado erayba erayo ka foosho xum yahay ayay sayigayga ku celin jirtay haddii aanay say la dagaalsanayna deriskeeda ayay la dagaalan jirtay hooyadeed sidoo kale uu ku afcelin jirtay waxay ahayd waalid inkaarun baan u oran karaa qof hooyadii ku afcelin kara sidoo kale walaaladeed ayay isahaysteenba gurigii uu ku aroostay alaabtii uu soo dhigay adabkii uu qaalisan ay u bedeshayba xerogeel isagoo la nool 10 gu oo xiriir ah muddadaas noloshiisu waxa ay u dhaxaysay aflagaado laga yaxyaxo dagaal joogta marbaynis isqa qabsadaan oo afka ku soo celiso hal sano kolkii ay isla soo jiitamayeen ayaa waxa dhacday halkaas ayay umushay laba mataanaha wiil iyo gabadh ayay halka ugu dhashay muddo markay laga soo wareegay muddadii ay fooshay ku jirtay ayaa muddo 2 bilood markii laga soo wareegay waxa dhacday inay iyadu saldhigga booliska intay aado ninkeedii soo dacweysaba dacwad ay ku soo tayna waxa ay ahayd inuu ka xaday dahab ay leedahay iyadu uu ka xaday kadib isaga ay jeelka lagu hubsaday jeelkuna la dhigay habeenkii markuu jeelka u hooyaday isla subaxnimadii aroortii hore ayaa waxa dhacday xeer ilaaliyaashii ayaa isaga soo daayay marka kiiskiisii la gudagalay oo la baaray ee waxaanu tahay filin ay samaysay uu yahay ayaa iska soo daayayba waa gabadh aanan jirin cid u dulqaadan karta qoyskeeda dayra ayay ka tahay xaggooda mana jirto cid soo booqata maalmaha firaaqada ee qaraabadu is xiriiriso cabsi laga qabo carabkeeda ayaanan
qoyskooda aanay soo booqan jirin. waxaasiba iyadoo jiraan buu yidhi waan la noolahay waana aan ugu dulqaataa maxaa yeelay runta marka laga hadlayo waxaasoo idil iyadoo leh haddana waxa ay ahayd buu yidhi gabadh dhowrsan na gurigeeda iyo shaqadeeda aan waxba uga dhaxayn bay ahayd. gurigeeda iyo shaqadeedunbay u dhaxaysayba mayna jirin siduu isagu sheegay mayna ahayn buu yidhi gabadh ciyaal suuqada u suuqa soo wareegta oo ragga iska raacda laakiin gabadh dhowrsan bay ahayd. aduu gabadh dhowrsan unbay ahayd si kastaba ahaatee isagunba olol ku hayso gurigunba ku ololin jirtay isagunde. wuxuu yidhi sidaa awgeed waxaa dabci noqotay inaan xumaanteeda aan ugu dulqaato maadaama ay dhankaa kalsooni xoogan aan kaga qabo oo keliya aniga ugu kooban tahay. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday iyada ayay xanuun ildaran soo ritay kolkaasay halis nafteeda ay gashayba. kolkaasuu isagu ka naxay ayaa waxaa dhacday gacmaha cirka u taagay ayuu yidhi ilaahay wixii dambi ii geysatay wixii xumaan igu haysay waan ka cafiyey ilaahay caafimaad sii. kadib dawooyinkii loo soo qoray ayaa waxaa dhacday marmarka qaarkood inuu magaalada Qaahire intuu socdo uu gaaf wareedo uu dawooyinkii raadiyo uu dawooyinku u doono. marmarka qaarkoodna gobollo kale oo shisheeye ayuu ka dooni jiray uu socdaal u geli jiray si uu ugu soo iibiyo dawooyinka. si kastaba ahaatee hanti waqti daryeel iyo dadaalba midna kama aanun hagran waana ula garab istaagay muddada ay xanuunsanaysay. dadaal badan buu galay sidii caafimaadkeeda ugu heli lahayd oo lugaheeda ugu istaagi lahayd oo labadeeda ubadkeeda u xanaaneyn lahayd. muddo bilaa markii xanuunsanaysay ugu dambeyn caafimaad qab bay ku soo istaagtay lugaheedii way ku istaagtay caafimaad qab ilaahay caafimaad buu siiyey. waxaa dhacday in dabeecad xumadeedii iyo aflagaadadeedii way sii laba jibaartayba. nasiibadu maxay ahayd ismay odhan ninkii intaasoo dhan daryeel waqti ku siinayay oo dawadaada raadinayay bal yaranasi oo bal hadalkaaga ka nastay hadal qabo ku dhaxaajigaaga ninkii dab way ku sii ololisayba way ku qaylisay. wuxuu ku leeyahay kalarka ayay qaban jirtay buu yidhi waxayna ugu dirqan jirtay in aan furo kolkaasaan dejin jiray buu yidhi anna aan maslixi jiray waxaa dhacday habeenada ka mid aana fogeyn ayuu guriga ku soo laabtay goor dambe kolkaasuu arkay iyadiyo albaabkii soo xidhatay hoosta ka soo xidhatay. markuu guriga gudaha u galay oo albaabkii dhexe marayay ayuu arkay albaabkii dhexoo xidhan. markuu ku qaraacay way diiday inay ka furto daaqadii dharkiisii uga soo turtay ee ku tiray idhaaf noo soo geli maysid bay ku tiri guriga. wuxuu yidhi iminka waxaan ku fikirayaa buu yidhi inaan furo dhan kalena waxaa igaga furan buu yidhi buuq iyo warbahaal. go-aanna wuxuu ku gaadhay inuu furo. subaxnimadii markuu habeennimadii uu bannaankaa seexday subaxnimadii ayuu ka soo dacweeyey saldhigga booliska. kadib maxkamad bay wada galeen. maxkamaddii ayuu ka codsaday markii kiiskeedii la baadhay ee 99% iyadu kiiskii ku cadaaday ayaa waxaa dhacday ina uu isagu go-aan ku gaadhay inuu furo gabadha. halkaasuu ku furay halkaasuu isaga tegey. ugu horreyn qisada marka halkan ka soo gudubno nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariisu nabadgeliye korkiisa ahaatee asxaabi ayaa u yimi asxaabtiisa ka mid ah. kadib wuxuu ku yidhi nabiga allow waan guursanayaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ma iska eegtay gabadha aad guursanaysa may ayuu yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waayo inaad iska eegtid waxay keensanaysaa buu ku yidhi muxubbo iyo kalkacayl iyo inaad muddo badan aad sii qabtaan oo aad muddo badan isku sii nagaataan. markaa waxaa fiican si gurigu gadaal uga xumaan inuu qofku u dooranayo oo xiriirka la sameynayo oo u guursanayo intaanu guursan inuu iska eego xaq buu leeyahay.
inanku inuu gabadha iska eedo xaq buu leeyahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiistiisa wuxuu nagu tilmaamayaa in gabadha sifooyin lagu guursado. kow buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, mid baa qurux lagu guursadaa, mid baa xoolo lagu guursadaa, faalmi wacan ay ka soo jeedo ama qoys wacan ay ka soo jeedo, mid baa lagu guursadaa buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. wata afraad ugu dambeysay diin, si nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri asxaabtiisii waa diin ku guursada gabadha. akhlaaqiyaadka kaloo dhan iyadaas dhisaya haday gabadha diinta iyo 5 salaadood ay haysato oo tukanayso, salaada ayaa xumaanta ka reebaysa. marka diinku guursada ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. dhalinyaray xadiista nabigana la baal marin ee sidiisa lagu dhaqmo xadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam, naxariiso nabadgelyo korkiisa haatee. sidoo kale inanta maxaa la yiri waxay ku guursan kartaa ragga. waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninka waxay ku guursan kartaa baa la yiri inantu inuu kow uu diin leeyahay, 2 akhlaaq inuu leeyahay. shuruud maaha labadaas oo kaliya ragga laguma soo koobin, haddana ha yeeshee waxaad guursataa qof dabeecadihiisa aad fahmaysid oo aad isfahmi kartaa. marka lagu leeyahay qof aad xiriir la sameynaysaa ama guursanaysaa, waxa weeye qofka aad noloshaada inta ka hadhay aad la qaybsanaysid weeye. guurkuna ciyaar maaha, qofkan aad guursanaysaan iska eega waqtigii iyo noloshaaga inta hadhay ayaad siinaysaa. iska eega qofka aad guursanaysaan. qisadana intaasaan waxay ka dhacday wadanka Masar. qisadaas halkaasay kusoo gabagabooday. haddaad aduu wax ku darsanaysidna dee commentidan ugu reeb, fikirkaaguna waa noo muhiim. ha ka baqaylin wixii maskaxdaada kusoo dhaca. haddii xadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam haysid halka hoose nagu reeb commentida. haddaad channelka ku cusubtahay subscribe basaaraysa, haddii hore noola joogtana muuqaalka leed basaaraysa. inta muuqaalka xiga aan isugu iman doono waxaan igaga tegayaa ammaano Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.